haddana intaa kaga gudbo oo u soo noqdo ujeedada ururkan loo aasaasay. ururkani waxa uu yahay marka ugu horeysa waa dhaqdhaqaaq cusub oo la doonayo inuu ka turjumo baahiyaha kala duwan ee gobolada Maakhir. mabaadida ururku waxa weeye marka ugu horeysa asalkiina waxa inoo ah diinta islaamka oo ay ku tacalluqdo nolosheena iyo xukunkeenaba. arinta labaad ee mabaadida ururka waxa kamid ah midnimada ummadda Soomaaliyeed ee bad iyo bariba leh. qodobka saddexaad waxa weeye in aynu raacsanahay mabaadida federaalka ah ee ku dhisan wax wada qaybsiga iyo wax wada lahaanshiyaha iyadoo la raacayo shuruucda u dejisan dalka iyo dastuurkaba. qodobka afraad waxa weeye nidaam xukun ku dhisan awood kala madax bannaan oo iskorjoogteynaysa waana tay naga maqan ka gobol ahaan cid lala xisaabtamo iyo cid loo yeedho iyo wax lagula xisaabtamo midna aynaan haynin tan iyo xilligii ay ka dambeysay burburkii ku dhacay dawladdii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariista. wixii ka dambeeyay gobolladeena cid lagala xisaabtamo oo nidaam dawliya leh noocu doonaba ha noqdo ilaa ay hadda ma hayno oo shacabka inta la soo horjoojiyo la weydiiyo wixii ka maqan iyo waxay lahaayeenba. in ay bulshadu dooran karto reer Maakhir madaxdeeda iyo mas'uuliyiinteedaba oo aanay noqonin marba cid dusha lagaga keeno. qodobka shanaad waxa weeye ilaalinta xuquuqda iyo xorriyadda dadkan ay leeyihiin oo aad mooday 30 sano u dambeeyay inay meesha ka baxday. waxa kaloo iyadana ku jirta in mabaadida ururkan uu aaminsan yahay cadaaladda iyo sinaanta ummadda Soomaaliyeed oo aad hadda moodid dad gaar inay ku shaqaystaan magaca Soomaaliyeed xuquuq gaar ah iyagu leeyihiin oo ka duwan xuquuqaha kale. ururkani waxa uu ka duulayaa in uu taa ka daba tago oo uu sameeyo in ummadda Soomaaliyeed isku xuquuq tahay. xuquuqda gaarka ah ee inagu aanu yeelan doonana waxa kamid ah in deegaanada Maakhir si siman ay uga go'do taladiisu oo aan la inkiri karaynin in aynu ka mid nahay ummadda Soomaaliyeed inagoo ah bulsho weynta reer Maakhir. in aynu daris wanaag kula noolaano dhammaan bulshooyinka inagu hareeraysan ee ah deegaan iyo qabiilaba. in ay maamulo iyo nidaam dawli ah oo dhammaystiran in loo helo dhammaan deegaanada ay Maakhir ay leeyihiin. ujeedooyinka haddaba ururkani waxa kamid ah number 1 ee aan u aasaasnay ujeedooyinkooda ugu waaweyn waxa kamid ah abaabulka iyo adkeynta midnimada bulshaweynta reer Maakhir dal iyo dibadba. 2 ka shaqaynta midnimada siyaasadeed iyo mabaadi midaysan ee bulshaweynta reer Maakhir. 3 ka shaqaynta wax wada qaybsiga midaysan iyo talo wadaag midaysan oo saldhig u ah bulshaweynta reer Maakhir. waxa kaloo iyadana mabaadida kamid ah in loo qareemo gobolada Maakhir iyada oo number 1 la raadinayo oo qareemida xuquuqda bulshada reer Maakhir ay leedahay ay kamid tahay deeqaha caalamiga la siiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya. raadinta ka shaqaynta iyo xal u helidda maamul dhammaystiran oo gaarsiisan dhammaan deegaamada Maakhir. waxa kale oo ujeedooyinka ama gaarka ah ee deegaanadeena looga baahan yahay kamid ah raadinta iyo ka shaqaynta helidda xarumo maamul oo u adeega bulshada dawladnimada oo ka hirgala dhammaan deegaanada Maakhir. dhinaca horumarka ka qayb qaadashada horumarka bulsho dhaqan dhaqaale ee bulshaweynta reer Maakhir. lambar 2 ka qayb qaadashada dhammaan mashaariicda horumarineed ee ka socda deegaamada Maakhir guud ahaan.
unkid ama bilaabid mashaariic horumarineed oo loo baahan yahay. intaas waa inta loo aasay mabaadida loo aasaasay iyo ujeedooyinka uu higsanayo ururkani. waxa kale oo iyadana muhiimadeedu ay tahay in la tilmaamo dhinaca siyaasadda oo aad moodid rubuc qarni laga mid ahaa Puntland oo aad moodid imika in aynaan siyaasadda meesha lagu go'aaminayo iyo meesha lagu hagayo iyo meesha loo socdo midna aan waxba lagaga lahayn. innaguna aynu nahay dad siyaasadoodii u igmaday dad kale iyaguna laftoodii aanay sidii loo baahnaa uga soo bixin oo ujeedooyin gaar ah laga yeeshay. 1998 waxaynu aasaasnoon ka mid ahayn maamul goboleedka Puntland. waxa la sameeyay xadqarameed, waxa la sameeyay wax wada qaybsi, wax wada lahaanshiyo. intii ka dambeysay dawladda Cabdullaahi Yuusuf Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyeen oo ku xigay Cadda Muuse iyo Faroole iyo Cabdiweligaas iyo hadda uu hayo Saciid Cabdullaahi Deni. intaba waxaad moodaa midba markii ka sii dambeynayayba inuu sii dhaawacayay wax wada lahaanshiyihii iyo ku dhaqmidda dastuurkii la sameeyay ee aan loo wada codaynin laakiin erga gaar ah oo la koobay oo tiro koob ay u codeeyeen inuu meesha ka baxayo iyadoo moodid in xukunkii iyo maamulkiiba uu ku soo ururay dad gaara iyo koox gaara kuwaasoo doonaya inay ku fushadaan siyaasado iyaga u qarsoon. taasina waa ta keentay in uu noqdo gobolkani mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale inuu noqdo fadhiid oo aanu haba yaraatee meelaha wax lagu gooynayo ama lagu gorfeenayo oo laga maqan yahay. waxaanu la soconnaa xaaladda buurta ay ku sugan tahay, waxaynu la soconnaa xaaladda ay shidan ku sugan tahay, waxaynu la soconnaa xaaladda ay galgala ku sugan tahay oo aad moodid in deegaamadeeni la soo ciriiriyo iyada oo la raadinayo resource-ka uu dadkan Ilaahay ugu manna sheegtay deegaanka ay ku nool yihiin iyadoo loo soo xiranayo shaarar dawladeed ama maamulal magacooda lagu soo qaadanayo laguna rabo in lagu deegaameeyo dad cusub. dadkii hore oo joogayna lagu barakiciyo, dad cusubna lagu abuuro si looga faa'iideysto khayraadka Ilaahay dhulkan ku manaystay. dhammaan gobolada ay deegaan dadka reer Maakhir waxay leeyihiin resource fara badan oo aanay lahayn gobolada kale, waana ta keentay in dhul fara badan oo deegaanada Maakhira laga guuray iyada oo meel kale loo hayaamay dadkana la doonayo in laga barakiciyo dad kale ay ku soo guuraan si ay khayraadka uga faa'iideystaan. hadalkii ku soo gaabinaya ujeedooyinka iyo hadafka loo abuuray ee ururkani wuxuu rabay inuu ka turjumo dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee dhaqan dhaqaale, ta siyaasadeed iyo ta horumarineed ee gobolada Maakhir ay degan yihiin. wassalaamu calaykum wa ala alihi wa sahbihi wasallam. dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan lagu shaacinayo dhismaha ururka badbaado Maakhir, qof walba magaciisa iyo martabadiisa aniga ku salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii xafladan ay ka tashiga dadka deegaankani qofka bini'aadanka inuu aayihiisa iyo masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa iyo meesha uu socdo inuu wax iska weydiiyo oo ka tashadaa waa arrin laga maarmaan ah. qof bini'aadan oo maxaan ku idhahdaay uu gabaad uga noqonayo ama uu ka sugayaana ma jirto. marka waxay kulankan iyo suumaatinkeena iyo dhismaha ururkan waxa uu ka turjubayaa in dadka gobolada Maakhir degaa ay hoos u eegaan oo ay ka tashadaan oo masiirkooda iyo mustaqbalkooda meesha uu ku soconayo ay iyagu ay noqdaan kuwa mindida daabkeeda haya oo goynaya ee aanay ka sugin cid kale. runtii anigu waxaan u arkaa inaanay maanta inaynu cid dhaliilaa aanan mudnayn. waxa la yiraahdaa adduunku waa 3 maalmood, waa maanta, waa shalayto iyo maanta iyo berrito. shalay wixii tagay waa tageen. waxay u baahan tahay in lagu cibro qaato wixii naga khaldamay iyo ciidaynu aaminay iyo ciidaynu wax isku darsanay iyo ciiday wax naga xumaysay iyo ciiday ay ahayd wax la soo hambeeyay wax noo hambeyn weeday inaynu ku cibro qaadano oo aynaan si dabajiitan badan iyo kutigaal badan aynaan si samayn. maalinta la joogaana in dadaal la sameeyo
oo qofku uu dadaal iyo speed hor la halka ka sii sameeyo sidoo muktasab noqon lahaa oo qabsan lahaa maalinta saddexaadna waa inay jirtaa meel dhagax ku yaalo ama hadaf aad leedahay iyo yool aad higsanaysid waad rabtid mustaqbalka inaad gaadhid marka insha Allah billaah kariim maanta wixii hore ku cibra qaadanay waa aragnay waxaanu aragnay horumar xumada gobolladeena ka jirta dib u dhac ka jira qof kasta oo mansab iyo mas'uul qabtaana cid ka sii sareyso mas'uuliyadda martabad u leeyahay leeyahay hadaan cidaas la fahmin waxyaalaha gobolladu u baahan yihiin iyo duruufaha ka jira qof wax walba isagu keeni kara oo sameyn kara ma jirto waxaan malaynayaa waxyaalaha kaliya hadeerto ay tusaale lagu soo qaadan karo waxa kamid ah in maxaan ku raadayay gobollada darafyada inaga xiga haday noqoto dhinaca waqooyiga iyo haday noqoto dhinaca bariga iyo dhan walbaba iyo maanta gobolkeenu halka uu joogo maxaa la isku dhaafay baa isweydiin leh ma waxaan dadkanu keensadeen baa ma dhaqaaleeyna dheer yihiin baa ma aqoonaynaga badan yihiin baa ma waxay naga horeeyaan baa maya deeqaha caalamka ee adduunku bixiyo iyo sida maxaan ku raadin system iyo nidaam iyo maamul Soomaaliya loogu kala samaystay oo loogu shaqeystaa la iskaga horeeya waxaan u baahanahay inaynu inagu istiraatiijiyad samaysano maxaan ku raadin qorshihii lagu badbaadin lahaa gobolladeena lagu horumarin lahaa wiilkeena iyo wiilka gobollada kale ee dariskana hay degani ay isku mustawayo isku mowqif u noqon lahaayeen inaan markaa inagu dib insha Allah bismillaah kariim aynu isugu tashano waxaan u maleynayaa barnaamijkani waa shaacintii iyo xafladii koowaad ee daafurka ahayd kulamo inta ka badan oo ka camiiqsan oo ka xeel dheer baa jiri doona dadka eldariska iyo dadka waxgaradka ah kulamo yeelan doonaan dadka aqoon-yahanka barnaamijka waxaan rajaynayaa in la kala ablaablayn doono dowrar badan iyo dad badan oo aynu aqli iyo cilmi iyo cududba bidaynaba magaalada inala jooga dabadeedana inaga maqan haday noqon lahayd gobolada iyo haday noqon lahayd qurbaha intaba waxaan rajaynaynaa in taladu ay noqon doonto talo la wadaago oo hal aragti ka soo baxaysa hal meel la u socota biidnillaahi tacaala aan rajaynayno inaynu horumarka gobolladeena aynu ku gaari doono waqtiga oo kaaban dartiinta soo goobay billahi tawfiiq dadkan mandaqadan degan inuu tashado oo cid tala keenta ilaahay u keeno waa u baahan aad baynu ugu oomanahay waxay tahay markaa sida uu sheegayay Puntland meesha la yiraahdo aynu ka midnahay sidii aynu wax uga dhisnay wali warsageli isma weydiin oo ma oran war Puntland ilaa dad baynu wax isku darsanay waxaynu isku darsanay aan ku noqono bal mar uu la xisaabtan wali warsageli isma weydiin sidii maalintii awrka loo kiciyay oo haddii baqadarayay aynu wax uga dhisnay dib ugu ma noqon inagoo caama waa laga yaabaa dadku inuu talaaqi qayb ku tagtay ay jirto laakiin talaaqida waxba kama guntamaan waxa jirta markaa arrinkan caawa warsangeligu waxbuu leeyahay wuxuu leeyahay hadduu isu yimaado oo wax isweydiiyo oo tala isweydiiyo waa isku raacaa waxaan u baahanahay wada tashi haddaynu halka ka gelayno oo maakhirka aynu ku tashanayno bari baa jibriilkeen oo waagi jibriilkeen haddii la qaadan lahaa soo ay tahay loo fulin lahaa maanta waxay ahaan lahayd magac meel yaal oo la yaqaan oo lagu hirto oo wax lagu raadsan karo oo nidaam leh waxaan marka oran lahaa waa rabadaan oo hadeer waa waqti talada iyo waxa hawshan iyada ah wadisteeda si degan oo dhab ah aanu wada qaadano oo aanu tashanno anoo ku hadlaya afka ka soo qaybgalayaasha madashan waxaan rabaa inaan fariimo kooban aan halkan ka gudbiyo bacdigeedna aan muhiimadda loo yimi meesha taayiidkeeda iyo maxay ahayd gacansiinteeda aan u dhaadhaco laba fariimood baan rabaa inaan u diro dawladda federaalka Soomaaliya anoo ku hadlaya afka dadka meeshan jooga ee hogaaminayaan golaha badbaadinta maakhir waxaan rabaa fariinta koowaad waxa weeye waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha
dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed ee xorta ah iyo madaxweynayaasha saddexda maamul goboleed ee Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay ku mutaysteen bogaadintaas iyo hambalyada aan hawada u marinayno waxa weeye dareenka Soomaalinimo iyo u damqashada dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyo inta ay maxay ka fekerayaan in Soomaaliya ay horumar gaadho waxa marqaanti ka ah shir kasta oo la isugu imanayay waxay ahaayeen cidda fekerka saliimka ah oo bilaa shuruud ah meesha keenaysay oo doonaysay in Soomaaliya heshiiso doorashana la galo qodobka labaad oo ay ku mutaysteen waxa weeye markay xaaladdu cakiirantay ciidii tanaasulka iyo turidda ummadda Soomaaliyeed iyadu soo jeedisay waa nimanka aan magacaabay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sidii doorasho loo qaban lahaa dalkana waa in laga wada shaqeeyaa lagana qayb qaataa aad baadna ugu mahadsantihiin iyadoo madaxweynuhu idiin horeeyo tanaasulka iyo isu soo dhowaynta iyo ilaalinta dadka iyo dalkeenna aad baad ugu mahadsantihiin bogaadinta haddaan ka gudbo waxaan rabaa inaan ra'iisul wasaaraha oo ah cidda doorashada hirgelinteeda mas'uulka ka ah aan fariin toosa u diro mudane ra'iisul wasaare annagoo ah reer maakhir waxaanu kuu sheegaynaa cid maamul goboleedyada halkaa imanaya nagu matashaa inaanu jirin markhaantina waxaa ka ah in gobolladani inay ku magacaaban yihiin dhulka lagu muransan yahay saas darteed waxaanu rabnaa inaad dib u eegis ku samaysid heshiisyadii doorashada rag iska qortay looguna tanaasulay annagu haddaan nahay shacabka reer maakhir ma tanaasulin Soomaali baanu nahay Soomaalina baanu rabnaa midnimada Soomaaliyeed baanu rabnaa xuquuqda aanu leenahay inaanu ka qayb qaadanno ayaanu doonaynaa aanuna Soomaali dhankayaga ka toosino taasna waxaanu gudbinayaa fariinta ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble inta haddaan ka gudbo labada fariimood waxaan rabaa inaan u soo dego reer maakhir Soomaalidu waxay ku maamaadaa tagtadaayo tamiido ogow haddii markii hore reer maakhirow xoogaa taladu si inoo ka macmacantay oo aynu meelo hadba wax isnidhi bal halkaasay malaha ku quman tahay taladu qofku marna waa helaa marna waa waayaa ka soo qaada wixii hore inaynu talayna ka luntay oo aynu weynay ahayd maanta waxaa loo baahan yahay inaynu isku tashanno inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno dawladnimo iyo xorriyad iyo horumar aan waqti iyo dhaqaale iyo hawl kugu soo gelin oo aan waqti loo horina lama helo saas darteed waxaan ugu baaqaynaa dal iyo dabadoo dadka reer maakhir maanta inay arrinta ayada ku midoobaan sidii deegaankooda iyo dadkooda ay u horumarin lahaayeen ay ka tashadaan ragga ka tirsan deegaanka ee maamulada u shaqeeya dacalka ma haysano qofku waa shaqayn karaa mushkiladna ma leh dibna uma aragno laakiin maamuladii loo shaqaynayay oo shaqaalaha laga tirsanaa mas-uuliyiintooda dalkeennii iyo dadkeennii dibadhac bay ku sameeyeen inaynu dib isu eegnaahi waa arrin lagama maarmaan ah saas darteed waxaan ku baaqaynaa cid kasta oo deegaanka ka tirsan reer maakhir in ay sidii aayaha dadka iyo dalka looga tashan lahaa lagu midoobo loona soo wada jeesto ciddii barnaamijkan soo abaabashana aad baanu ugu mahad celinaynaa waan rabaa inaan mahad celinno ilaah baa mahad iskale ee arrinkaa ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waad ogtiin in xaalado waaweyn taagnaayeen waad ogtiin in hawl badan jirtay waad ogtiin amnigiinu khalkhal galay waad ogtiin in iftiinkii yaraa ee baxay ee 4 sano soo baxay in la dumiyo lagu talagalay arrinkaas ilaahay shalay way naga badbaadiyay waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka ugu horeeya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo uu ku xigo ra'iisul wasaare Rooble oo uu ku xigo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka oo ay ku xigaan baarlamaanka sharafta leh ee karaamada leh oo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed ba u badbaaday
inaanu hambalyeeno jasaakumullahu khayr taariikhda ay qori doonta ummadda Soomaaliyeed maanta baraha bulshada iyo YouTube wax ku yaala waa dhaata ku taala hadaa dhimatid waa laga weydiinaya wiilkaaga birita waxa loonayaa aabaha waxa uu sameeyay awha waxa uu sameeyay ma sameeyay YouTube-ka lagu qoraya waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed iyo deegaanka ba ummadda dadka ummadda hoggaanka u ah war waxa dhigataan fi aakhirada waa la daarkaya ilaahayna aakhirada way idinka xisaabtamaya ifkana ummadda way daarkaysaa waxa la rabo ay tahay waxay tahay aan idin sheegay waxay tahay bilaadku waa madaxa qof ka buko inta kale badbaadi mayso laakiin inta kale ay bukuto oo madaxaas caafimaad qabo waa badbaadaya caasimada Muqdisho waxa weeye ay tahay waa madaxii ugu sareeyay waan ognahay 30 sano burbur ku jirnay waxa laga sheekeeyo oo la habaaraa anigu waxaan u duceeyaa Maxamed Siyaad Baraan u duceeyaa waxaan ugu duceeyaa 22 sano wuxuu qabtay waa loo yahay waxbarashadii horumarkii warshadihii isku filaashii boqolkiiba 80 dalku waa isku filaa ayuu gaarsiiyay maanta 30 sano ka dambeysay kuwii dumiyay oo xabadda sitay iyo kuwii Itoobiyaanka ay xabadda sitay mana salaawiya asayaasa fawarqi oo la tariye jooga xabad bay siteen waxay sameeyeen waa la aragtaan kuwii naga burburiyay oo dadka baabiyay waxay sameeyeen wali 30 sano ayaa waxay nagu hayeen dhibaatada iyo arinka iyo madhalayska waxay sameeyeen waqtiina bisadu libax bay noqotaa waa maya Soomaha shabeelku bisadu shabeel bay noqotaa waa maya laakiin waa isku magac waa reer kaat laakiin bisadu ma noqoto madaxweyne maamu gobolada inoo sameeyeen bisado oo kulli libax baanahay war libax ma tihid wadanku federaal baa la qaatay dowladda federaalka ayaa mas'uulka uguna sareysa maamu goboleedka waxa loogu talagalay deegaamadiisa inuu ka shaqeeyo maamul daadajin ku sameeyo hadii gala deegaan tahay iyo hadii tuulo tahay iyo hadii heer degmo tahay iyo hadii heer gobol tahayba inta inuu ka soo shaqeeyaa laga doonayay maanta ma hayna Puntland 20 sano jirtay ma haynaa golad deegaan qof iyo codab yaa la hayaa waa maya waxa keenaysa waxa la sameeyo koota la xidhay waa koota la xidhay dhibta keenaysa dadka reer maakhir waxaan u sheegayaa war dastuurka federaalka maakhrideen qodob cad baa sheegaya hadii aad maamul goboleedka ka mid tahay aad wax wada qabsan weydaan inaad si toos ah ula xiriir karto hadii heer degmo tahay iyo hadii heer tuulo tahay iyo hadii heer gobol tahay dowladda federaalka toos baa ugu xiran kartaa dastuurka ayaa dhigaya ma aha waxa qof iska sameystay ma aha Puntland way ognahay waxa ay inagu sameysay wadanku barwaaqo ahaa nabad buu ahaa markii qabiilada loo kala baxayna waa ognahay deegaankeena nabad buu ahaa deegaankeena cid soo gashay ma jirin inaga istifaacinay inaga ka heshiinay taladeena gacanteena ku jirtay maanta taladeena gacanta kuma jirto cid u talaynaysa garamaysa mardi maanta timi in la soo yimaado oo la tashado oo la baraarugo waxaan leenahay hawsha halka lagu sii wado aadna waa ku dheeraaday ninkii xiriintaana waa soo socdaa waxaan ka rabaa hawsha halka ku sameeyna maanta waa bilow yeena ka harin yaan laga harin halkan waxaynu isugu nimi waxa weeye waa ku dhawaaqida madasha badbaadinta maakhir mar haddaynu maakhir leenahay oo kelmaddaas soo baxdo waxaad moodaa inaynu labada maamulba ee dhinacyada ay ka madax bannaan tahay oo aynu gaar rabno inaynu uga hadallo danteena gaarka oo toos ula hadallo dowladda federaalka ee Soomaaliya madashan waxa kamida ujeedooyinkeeda ilaalinta deegaanka waxa kamida dhaqaalaha waxaasoo dhan waxay u baahan tahay inaynu samaysano ciidan deegaanka oo ilaaliya ama aynu inagu leenahay badana maamuladan dhinacyada marka aad eegtid mid waliba waxa lagu oranayaa mushaharaan qaadanayo mushahar yar baan meesha ku ilaashanaynaa waxaad moodaa in mushahar laynagu haysto marka ciidan deegaanku leeyahay waa leeyahay hadda oo aynu ka madax banaanaano mushaharada in dhaqaale la ururiyo waxaan u malaynayaa waxa ugu dambeysay hadda maamul ahaan Puntland bay noogu dambeysay oo deegaankani ka mid ahaa iyaduna ujeedooyinkii aynu isku raacnay ee ahaa dawlad Soomaaliyeed inay ka leexatay
oo ay barnaamij gaara oo aad moodid inay la soo baxday jabhaddii SSDF ee ay hore u lahayd inay la soo baxday marka inagu SSDF kama mid ahayn ujeedooyinka aynu ku midownayna kama mid ahayn waxaan si cad u sheegayaa inaan maanta laga bilaabo aanu anagu toos ula xidhmayno haddaan nahay maakhir dowladda federaalka ee Soomaaliya fariintana iyadaan halka uga dirayna tan labaad waxaan leeyahay halkan cid gaar ah oo leh ma jirto waxaanu rabnaa wax allaale iyo wixii fakara cid haysta dal iyo dabadba inay nagu la heshiiso oo nagu la soo sheergarayso siyaasiyiin iyo leaderships inoo hadlaana ma jiro dadkani waxay ahaayeen dad dhaqankiina sidaas Soomaaliya u burburtay buu u burburay Soomaaliya oo dhan baa dhinac waliba burburtay haday dhaqaalahayd haday dhaqanahayd haday dawlad ahayd cid waliba iyada gaar isu dhistay waxa loo baahan yahay aqoontii iyo aqligii iyo inta bila aadan lahaaba waa leenahay in gaar loo tashado in aynaan ku xidhnaan cid inala mida oo maamula oo isagu dhulkiisa gaar u dhisanaya inaynu inagu keena dhisano inaynu inagu ka danteena ka ogaano inaynu inagu isku tashano maanta cid waliba gaar bay u baxday hoos baa la isu haystaa inaynu inagu gaar u tashano wixii fakar haya qoliyaha dibadda ee diyaasbaraha waxaanu leenahay dadka meesha laga dhisay waa dibadda hadday aqoon ahaato iyo hadday dhaqaale ahaato iyo hadday noqoto fakarba intuba dibadday ka timaadaa qoliyaha dibaddana aad baan u bogaadinaynaa waa xilli rabadaan hadalka sii badin maayo waxaan rajaynayaa inaan halka ka sii amaqaadno barnaamijkan imtixaanaha inoo haynoo socday anoo hadalka badinayna waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka caaqil cabdifataax xaaji siciid soo dhawow maakhar waa meelaha laga ikhtiraacay maamulada haddana waxaan leenahay caawa haddii loo kacay oo rag hogaamin karaya u kaceen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana ku taageeraynaa masiirka beelaha maakhar cid ay mataqaanaa jeebka ugu jirtaa ma jirto masiirkeenna innagaasu haynaa masiirkeenna innagaasu haynaa dad kale qolyaha jaarkeenna ah nin walba waxbuu samaystay walaba ay mar wax ku darsanay waa jirtaa oo qolada dariskeenna oo Puntland waxay isku darsannay maadaama ay sharcigii iyo dastuurkii ay laaleen oo maamulka halka dashada joogo Said Cabdullaahi Deni wixii uu laalay sharcigii iyo dastuurkii uu jabka ku qaatay waxyaalaha uu sameeyay inaan isaga sheekeynayn caalamku ay maqaatiga yihiin ra'iisul baarlamaankii xisaaradda lahaa ay xoogu kaga qaaday dadkii askartu laayo maydkii uu ku dulcadeeyay xildhibaanadii xasaanadda lahaa oo sharcidarrada xasaanadda uga qaaday sharcigii maadaama uu jeebkii uu ku qaatay waxa weeyaan wax innaga isu keen jiraan ma jiraan dowladda federaalka hal baan odhanayaa maadaama hadda ay xilli doorasho la galay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan leenahay beelahan masiirkoodu iyagaa u madax bannaan waxa weeyaan in mataqaanaa hadda maadaama laaga fadhiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan waxa weeyaan anaga cid nagu matashaa ma jirto oo nagu matasha siyaasadda hadda Puntland waxa weeyaan in sida gobolada waqooyi xaq adiga u leh iyo ragga aanu dooranay inay masiirka beesha ka soo taliyaan aad iyo aad arrinkaa warkaaga fariintaasi waxaan jeclahay inaad warkaa dhugu yeelatid oo arrinka aadan weydeen howlaha ku yaala ka mid tahay beeshan maakhar iyo arrimaha lagaa sugayo in aad arrinkooda meel saartid sidaasaan waxayaan fariintaasna waxaan u dirayaa qolada federaalka beesha maakhar waxaan leeyahay aynu isku kalsoonaano harub daatay caanaha habadiisa la qaban jiray siyaasadda innaga cidina caburin kartaa ma jirto waxa weeyaan danteenna iyo masiirkeenna iyo siyaasaddeenna innaga u madax bannaan dastuurka ayna siiyey waxaan leenahay in waxaweyaan hogaaminta maanta haddii ay rag aqoon-yahana ay hogaaminayaan raggaa waxa weyaan dhiirigelinno aynu garab istaagno